kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal idilhaantiinba soo dhawaada janalka nuxurka dhacdooyinka oo aan markaa maanta kaga hadlayno arrimo badan oo ku saabsan xayiraadii mareykanka uu kusoo rogay soomaaliya gaar ahaan madaxda iyo sidoo kale dad uu sheegay markaa inay ku lug leeyihiin wiiqidda dimuqraadiyadda soomaaliya. arrimahaas ayaa in badan kaga hadlaynaa iyo saameynta ay markaa u keeni karto geedi socodka doorashada ka socota dalka oo dabcan 25 febraayo loo asteeyay in ay soo gabagabowdo. axmed cabdi maxamed axmed toronto ayaa barnaamijka qaybigala ah oo dabcan ila falanqeyn doona qodobkani. axmed waa kusoo dhaweynaya marka hore. waa mahadsan tahay wadani waa ku dhawahay janalka nuxurka dhacdooyinka aad baa mahadsan tahay. waayahay saacadihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada haystay safaaradda mareykanka gaar ahaan iraahda mareykanka oo soo dhigay dabcan amaba soo gudbiyey oo sheegay warbixin gaar ah oo uu sheegayo in uu markaa la beegsanayo shakhsiyaad gaar ah amaba dadka markaa ku lugta leh in ay doorashada soomaaliya ay curyaamiyaan ama aysan hore usii socon. dabcan arrintaasi dad qaar ayaa siyaabo kala duwan u fasirtay oo ah dadka loola jeedo iyo cidda ay markaa noqon karto oo ay caqabadaas ama canaantaas markaa ku duldhici karto ayaa inta badan aad loo falanqeynayay saacadihii u dambeeyey. arrintaas saameyn noocee ay ku yeelan kartaa geedi socodka doorashada dalka? waa mahadsan tahay wadani. runtii tan iyo markii madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ay ka dhammaatay muddaxileedka dastuuriga ahaa beesha caalamka oo mareykanku ugu horeeyo oo ku jiraan wadamada kale ee soomaaliya taageera intaasba waxay soo saarayeen walaaca ay ka qabaan markasta dib u dhaca doorashada soomaaliya iyo inuu dalku geli karo khatar dhinaca maaragtay amniga ah maadaama soomaaliya ay sanadihii dambe soo kabanaysay oo kasoo baxaysay dhibaatooyinkii iyo carqaladihii dhinaca siyaasadda. mareykanka wuxuu soo saaray mar hore ayuu horta sheegay inuu digniin uu soo saaray ku saabsan haddii 45 cisho ay ku heshiiyeen madasha qaranka in lagu dhammaystiro aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya in uu maaragtay uu soo saari doono madaxda siyaasadda soomaaliya inuu maaragtay saari doono xayiraado ama maaragtay cunaqabatayno. runtii tanna waxaa moodaa uun inay tii hore uun ay daba socoto uu markaa ula jeedo in dadka doonaya dadka lug jiidaya doonaya maaragtay danag iyo gaar u ah darteed u dibdhigaya arrimaha doorashada soomaaliya inay sii jitanto in ay maaragtay ay joojiyaan caqabadaas oo carqaladaas ay ka hor qaadaan. marka kolley hadda lama dhihi karo waxaasay soo kordhin doontaa laakiin haddii aan eegno tallaabooyinkii hore uu qaaday mareykanku markii maalinkii hore uu shaaciyey wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka ay shaacisay inay tallaabooyin dhinaca xayiraadaha iyo cunaqabatayna ay la beegsan doonto dadka dhibaateynaya hanaanka doorashada soomaaliya waxaad moodaa inuu degay buuqii faraha badnaa ee haystashadii faraha badnayd. waxaan ogayn in maalin walba ay qolada mucaaradka ah ay aada maaragtay uga hadli jireen arrimaha doorashada oo ay shirar jaraa-idoo fara badan qaban jireen oo ay maaragtay doorashada ku dhaleecaynayaan. waxaa kaloo ood moodaa inay doorashada sidii hore ay maaragtay xoogaa ay bilaabatay oo meelo badan ay maaragtay ka dhacayso oo ilaa hadda qaar dowlad goboleedeed ka tirsan ay marayaan deegaan doorashadii labaad oo maanta oo kala baraawe ay maaragtay kasoo baxeen xildhibaanadii ugu horreeyay deegaan doorashadii labaad 13 kursi ee baraawe yaalay. runtii arrinta waxa kaliya ay soo kordhinaysa hadda waxay tahay in madaxda soomaalida ay u muuqanayaan dad aan lahayn damiir wadaniyadeed iyo damqasho ay dadkooda iyo dalkooda ay ka qabaan sababtoo ah waxayna tusaysaa in aysan wadanka iyagu aysan hadda dad u naxaya oo maaragtay u jirnaxaya oo ka damqanaya inaysan ahayn laakiin ay ku foogan yihiin iyagu danahooda shaqsiga ah iyo hogaami kasta ciduu rabo iyo shaqsiguu rabo isagu maaragtay inuu mataqaana iyo sida uu isagu rabo inay siyaasadda soomaaliya u socoto. laakiin xilligan oo abaara lagu jiro dadkii ay dhammaanayaan harraad u dhimanayaan xoolihii ay dhaafeen
barakac iyo maaragtay balanbal badani uu dadka Soomaalida u haysto aysan iyagu danaynaynin inay maaragtay waxaan ay soo afjaraan 275 xildhibaan in muddo sanad ka badan muddo sanad ka badan la isku haysto oo maalin walba shir iyo bahalka la isula tagayo taasi waxayna taas ummadda Soomaaliyeed waxay tusaysaa in dadka hogaamiyaasha ee maanta wadanka mas'uulka ah inaysan maaragtay dareenka dadka ku jira inaysan la dareen ahayn waaya Axmedow waxaa kaloo jirta dabcan doorashada way socotaa oo golihii shacabka ayaa muddo hore bilowday oo dabcan meelo kala duwan sida Braawo oo kale in deegaan doorashada labaad ama qaybta labaad ee loo asteeyay markaa ay ka socoto sidoo kale beledweyne ayaa iyadana la rajeynaya inkastoo arrimo badan markaa isqabqabsi ah oo beelaha deegaanadaas degan guud ahaan ay ka jirto iyo arrimo badan markii loo eego arrintan xayiraadda Mareykanka uu kusoo rogay madaxda Soomaalida iyo guud ahaan dadka markaa arrimaha doorashada uu sheegay inay curyaaminayaan maxay ka dhigan tahay maadaama doorashadii ay socoto maxaa keenay in Mareykanka weli uu ka dhutinayo ama isleeyahay weli doorashadu ma socoto caqabado badan baa ku gadaaman ma waxaa jira in xilligii loo qorsheeyay ahaa in 25 Febraayo ee bishan ay soo gabagabo doorashada inay jirto cabsi kale oo ah inay kasii dib dhacdo xilligaas New York waxaa jira de Mareykanku waa ogyahay waxa ay maaragtay nin walba siyaasiyiinta Soomaalidu waxay damacsan yihiin waa Mareykanku waa ogyahay wax qarsoonna ma aha wuu tuhunsan yahay kolley siyaasiyiin badan inay maaragtay rabaan in ay iyagu siday bahashu dhankooda u marto meesha waxaa ka jira kooxo badan oo loolamaya ama dowlad goboleedyada dhexdooda ha ahaato ama dowladda federaalka ha ahaato ama musharaxiinta ragga u taagan hanka siyaasadeed leh ha ahaato waxaa doonayaan meeshan in loolan badan baa jira marka qolo waliba siday dantooda ay u gaarto way mataqaanaa doorashada mar walba ay u dib dhacaysay haddana way u dib dhici kartaa oo waxaa muuqata maanta waxaa maraynaa 9 February waxaa muuqata marka 25 February inay adag tahay inta laga gaarsiin karo ilaa iyo hadda 100 iyo dhowr baa la dhihi karaa waa la doortay xildhibaan marka waxa weeyaan deegaan doorashadii labaad oo dhan hadda wax laga bilaabay Braawo jirta wixii kale dhan way harsan tahay arrimahaas oo dhan waa wax u yaala madaxda Soomaalida inay maaragtay dhameeyaan oo xaliyaan marka isaguna wuxuu ka walaacsan yahay in raggan isku haya siyaasadda iyo maaragtay rabitaanka qoloba ay doonayso qolada kale inay karkaarka ay weydaariso in ay dib dhigi karto in doorashadu dib u dhacdo muddadii la sugayay iyo ka badan loo qabtay iyo ka badan inay qaadan karto taasuu marka rabaa inuu Soomaalida madaxda Soomaalida iyo siyaasiyiinta Soomaalida inuu ku cadaadiyo haddana wuxuu sheegay inuu dadka siyaasiyiin Soomaali ah uu maaragtay uu saaray xayiraad dhinaca socdaalka ah laakiin dadkaas magacyadooda iyo maaragtay mansabka ay hayaan iyo inay federaalka ku jiraan iyo inay dowlad goboleedyada ku jiraan weli muusan cadeynin laakiin wuxuu yiri mas'uuliyiin Soomaaliya ayaa waxaan saarnay xayiraad taasna waa ogaan doonaa waqtigaana sheegi doona kolley dadka ay noqon doonaan iyo kuwa maaragtay lagu soo rogay arrintaas waayahay weli daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijka markaasi nuxurka dhacdooyinka oo idinkaga imaanaya janalka nuxurka dhacdooyinka oo aan ku eegeyno xaaladii uu markaa Mareykanka uu kasoo saaray arrimaha Soomaaliya ee la xiriirta xayiraadda dhanka socdaalka Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto ayaa barnaamijka qaybiga ah oo markaa ilan falanqeynaya Axmedow waxaa jirtay dabcan oo lagu heshiiyey laba deegaan doorasho inay dalka ka dhacdo oo kale markaad si u eegto waxaa jira caqabado badan oo dowlad goboleedyada ku hareereysan oo dabcan ay markaa saamixaynin in ay inta badan si fudud xal looga gaaro arrimaha doorashadana ay deegaanada soo dhacaan arrintaas iyadana caqabad nooca ay ku yeelan kartaa hanaanka geedi socodka ee doorashada dalka arrinta deegaan doorashada labaad runtii waa waxyaabaha mar walba dib u dhigayay hanaanka ay ku socoto doorashada waxaa arkay qoraal uu soo dhigay gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee FID Maxamed Xasan Ciro oo ka hadlayay deegaan doorashada labaad ee Baydhabo ka bilaabatay
wuxuu lahaa deegaan doorashada labaad in ay qabsoonto waa arrin wanaagsan. sababtoo ah waxay ahayd buu yidhi arrin in badan hortaagnayd in maaragtay la isku hayay in doorashadu ay socoto oo ay sidii loogu talagalay ay howluhu u socdaan. marka waxaad moodaa qodobkaasi inuu wax badan ay isku hayeen hogaamiyaasha Soomaalidu oo ay ku kala aragti duwanaayeen oo qoloba si ay maaragtay ay wax u rabeen gaar aad iyo waayahay dabcan beesha caalamka dalka inay doorasho ka dhacdo in muddo ay naawileysay oo dabcan madaxda dowlad goboleedyada iyo guud ahaan madaxda Soomaalida in badan ay kala fariisteen oo kala shireen. waxaa ugu dambeysay midii ahayd in ay markaa ay ku goodiyeen in dhanka dhaqaalaha ay xayiraad idin ku soo rogaan oo dabcan aysan dhanka technicalka ay qayb ka noqon doonin. sidoo kale afayeenka guddiga doorashooyinka isagana hadlay waxa uu sheegay in ay haysato arrimo dhaqaale yari oo marka ay ku sii wadi karaan arrimaha doorashooyinka. guud ahaan markaad fiiriso hadda waxaa jira caqabadahaas oo inta badan dadka siyaasadda u dhuunduleelay iyo guud ahaan Soomaalida ama dadka Soomaaliyeedba in badan ay wadaan oo caqabad ay markaa arrintaa loo tiirinayo. xilligan markaad eegto waxaa jirtay khilaafaad xoogan oo u dhexeeya madaxda dalka ugu sarreysa gaar ahaan madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday iyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah. iyadana dadka qaar waxay leeyihiin madaxweynuhu maadaama uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha doorashadii dalka iyo amnigeedaba weli waxaa jirta faragelin oo dhanka madaxweynaha loo tiirinayo. caqabadaha ishaysiga qayb ma ka noqon kartaa xayiraadan la saaray inuu dhankaa u tiirinayo Mareykanka? waxa weeyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ognahay in badan in maaragtay khilaaf dhinaciisa labada dhinaca uu jiray. runtiina dowladdu dee ay u kala jabtay in madaxweynaha raacsan iyo in ra-iisul wasaaraha raacsan. taasina qayb weyn bay ka lahayd inay arrimaha doorashooyinku ay dib u dhacaan oo sidii la rabay aysan u soconin. qaybteeda ka lahayd laakiin waxa weeyaan mar walba beesha caalamka iyo dadka Soomaaliya dowladaha taageera waxay diidayaan wax kasta oo carqaladeyn kara arrimaha doorashooyinka ama khilaaf ha ahaado ama dana siyaasadeed oo kooxaha siyaasadda isku haya ay kala leeyihiin ha ahaadee. waa hagaag daawadayaal inta ayaan kusoo afmarinaa barnaamijkii nuxurka dhacdooyinka oo kala socoteen janalka nuxurka dhacdooyinka oo aan dabcan maanta ku eegeynay xaaladda markaa dabcan kasoo cusboonaatay dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo Mareykanka uu xayiraad saaray madaxda Soomaalida iyo guud ahaan dad markaa uu sheegay in ay markaa ku lug leeyihiin inay weeqaan dimuqraadiyadda dalka oo ay hor istaagaan hanaanka geedi socodka doorashada dalka. intaan ku kulmayno barnaamijkiisa xiga nabadgelyo.